waxaa loo baahan yahay qof dalka aan dembi hore uga gelin isaguna aan wax ka doonayn oo raadinaya maanta u taagan badbaadinta Puntland maanta qof u taagan ayaa loo baahan yahay qofkaasna waxaan isleeyahay markii anigu aan fiiriyay dhow iyo 10 qof baa hadda sharaxan sida aan ku dareemayo oo muuqaalkooda ama hadda soo bandhigay waxaan leeyahay ninka la yiraahdo Maxamed Salaad oo nin aad u qiimo badan maantana dhaqaale aan Puntland uga baahnayn una baahan maanta inuu wax ka badbaadin kara aan isleeyahay inay u doortaan shacabka Puntland